السلام عليكم أصحابتي شرفت لسيتين حال دين كورما ما شاء الله أنا واني حيسي إذن كم يحيستين طلو أنا محل لها بريها أنا تواسك مشغولة حياة بدن أني صوبة وحان ماكو مشغولة وحياة بكرة نحنا وحا إذن رالي قليون بانكو مشغول سنة marka xaaladiina ka warama maxaad haysaan asxaabteeda sharafta leh fadlan hadaad nagu cusub tahay kusoo dhawow channelkayga Ikraan Yuusuf Boore like saar comment ka bixi share garey subscribe dheh marka asxaabteeda kusoo biir maasha Allah maanta maxaani wadaahata walaashiin bariya waad ka maqneedeen marka waxaan soo wada waxyaabo badan hadda waxa mani wado waani xiiso kaliya waxaan rabaa inaan sheego in waxyaabo badan soo wadno hadii ahayd xijaabadii hadii ahayd saakooyinkii quruxda badnaa qamaaradii kobciye kama marna koos waa wax saan noo kobciyo noo qurxiyo ma fahanteen kobciyo number 1 asaga ah marka xijaabaa soo socdo qurux badan aan soo wadna isku daysi aan xijaab maan isku daysi aan soo wadna qurux badan aad u qurux badan iyo waxaan soo wadnaa saakooyin oo aad u qurux badan ayagana libisa marka ciidina way soo dhowdahay hadee waa inaad iska la kicisaan samahan inta iska la kicis rabto marka asxaabteed wax badan aan soo wadnaa ma sha Allah hana sugu waayina wax badan baa soo socdo marka after 2 days and after 3 days insha Allah wixii saakooyin wixii fashion oo ma sha Allah oo idin qanciyo oo idin raali geliyo kulli inta la idin soo dhigayaa dukaanka kaliya lagu ma gadaayo dukaan kaliya kuma ekaanayo asxaabteedana inaan la wadaago waa laazim markii aan la wadaago oo idinkan wixii idin ka qanciyo ha ka gadataan xijaab isku daysidii aan ka marneen oo ciid ma sha Allah aad u qurux badan aan soo wadnaa oo ma sha Allah oo ka heli doontaan oo anagana aan ma sha Allah si heer sare u soo hagaajinay marka asxaabteed hadde waxaa idin ka rabaa inaad wixii aad ka heshaan commentiga noogu reebtaan marka halkaas hadee dad nagu cusub tahay walaalo soo dhawow channelka subscribe dheh meesha guduudan iska taabo waa beesa la'aan like iska saar comment ka bixi asxaabtaada la wadaag tawaakaas asxaabteyda waan isku maxal dhahay aad baan kugu xiisay marka dee kobciyeena dee waa kaasa halkiisa buu noo marayaa kaal iska arag ma sha Allah waxa ugu badan oo ku mashquulay waa kobciye afaaraha kale aan soo wadnanane maxaa dhahay ayagana way soo socdaan laakiin waxa zaid ugu mashquulna waa kobciye maxaa dhahay inaan dad dibadaha jiro aan u dirno waxyaabo badan dalab badan baa la soo dhiibtay marka saas idin kaga mashquul asxaabteyda marka dadka la qanciyo way fiican tahay idinkan inaan qanciyo way fiican tahay marka asxaabteyda waa ka saade waxyaabo badan la soo wadaa channelka waa la kala kicinayaa wax badan la soo wadaa insha Allah idinkan waad ka heli doontaan wax idin raali geliyo ma sha Allah aad ka heli doontaan waan soo wadnaa kobciyihineede gabdhihii aan ka gaday ma sha Allah gabdho oo ka soo celi jawaab fiican ay noqdeen kuwa hadda naga qaatane waan arkaynaa jawaabtay soo celiyaan ma sha Allah kobciye ceeb ma lahan waan sheegay wax ceeb uu leeyahay ma lahan waa kareen aad iyo aad u dheelitiran nafaqo ku dheehan tahay aad iyo aad u fiican hadda waa ujeeda bacbac waxaas dhan waa kobciye hadda waa ujeedin wajigan uu korsan yahay marka dadka qaar maxay WhatsApp-ka iga soo weydiiyaan baayo ma kaniini baa cuntaa mise kobciyaasaan ka dhigay ana horta weligay kaniini ma cunin waana necba waxyaabaha kiimikoolka ah marka waxaa idin kula talalahay inaad kobciyo isku ogaataan fruitkiina juicekiina yar oo rasiinka hadee hooyaa tahay ilmaad korinaysaa jikada dee ku laabo marka waxaa idin dhihi lahaa waxyaabaha carrotka iyo orange liimada oranjiga iyo carrotka iyo iskula dadaala seeka asagoo machine seeka shiidaa jiro marka skinkaagu wuu qurux badnaanayaa kobciye hadaa ku darto maxaa sugay waa waxba hadaa subaxdii 2 xabo liimo orange ah iyo 3 xabo carrot hal bakeeri ka dhigatid
qaca isku siist muhiimada maaha inaad badar isku daldashid basti bris feera iska saartid ma ahan muhiimada waa inaa wixii fitamiin ah cuntid hooyaa tahay ilmaa korinaysaa maanta dhan waxbaa ka daba cararaysaa fitamiin aa u baahan tahay naftarkaaga waa inaa isfiirisid ma fahanta marka waxaan idin talin lahaa inaa cabitaanka aad badsataan skinkiina wuxuu noqonayaa skin maasha allah oo dhowrsanoo wuxuu noqonayaa bilic leh maasha allah marka waxaa kaloo idinkula talin lahaa subaxdii oo kale markaa soo kacdid xataa spinachka aad u fiican yahay spinach aa qabsanaysaa waxaa ku darsanaysaa 2 xabo oo limo orange ah 2 xabo oo cananaaska oo jabjabka oo 20 kala gado aa ku darsanay mashiinka waxa ku shiidanaysaa oo biyaha aan lagu shiidan dee qof kasta uu garanaya oo qashinka geeska u tuuro qacba isku siinaysaa juuska macaan wallahi inuusan jirin skinkaagana wuxuu ku noqonayaa lighten qurux maasha allah hadda kubciin hadda ku darsatay waa laga sheekeyn doonaa ma fahanteen asxaabteeda markaan waxaan leeyahay wixii hooyo iyo wixii gabar ahba intaas isku ogaada muhiimada waa inaad maqaarka wixii oo qurxinaayo inaad cabtid kaliya ma inaad kareen marsatid marka cabitaanka badsada cabitaanka caba sokorta iska daaya laakiin waxaa cabtaan cabitaanka like hadda oranjida aan sheegay aad ay u fiican tahay limadaas oranjiga 2 xabo 4 xabo kaarot hal bakeeri uu kugu filanyahay qaca isku siinaysaa cuntadaada dhanba asaa kaaga fiican canjaari sidii cadeynta isgurladan canjaari macsar ayada kaaga fiican dhaba isku siina maqaarkaaga quruxuu ku noqonayaa kubciina isku ogaatid waa laga soo sheekeynaa ku dhaal isbuuc fahanteen asxaabteeda maasha allah hadda waa kaas asxaabteeda intaasaan kula talinaa wixii hooye ah inay samaystaan siiba spinachka maasha allah waa la soo ogaaday afaarahaas spinachka cananaaska iyo liimadaas inaa isku darsataan ayagoo seeka biyo aad iskaga darin qaca isku siisid kareen yar dhac isku siisid dee adaab iska nuuraayo dee fahanteen asxaabteeda hadda waxaa isku ognahay kheyr badan hadal badan ahaana buuxshaa lahay maasha allah intaas ayaan kula talinaya hooyo haddaad tahay cabitaankaaga badso waxaa skinkaaga qurxinayo waa cabitaan biyaha cadna badsada biyaha cad aad u fiican yihiin haddaa biyo cad oo fiican aad cabtid everyday oo nadiif ah cabitaankaas aa kuu sheegana aa cabtid dee kobciina isku ogaatid hubaal waad qurux badnaanaysaa skin qurux badanaa lasoo baxaysaa laakiin haddaa dhahdid bariiskii baan intaan rig isku siiyo baan biyo ka dabageyn horta asxaabteeda mogtiin haddii bariis aa cuntid oo biyo aa ka daba cabtid wuu bararayaa waxba kuma faa'iidaysid kugu dhex fuuri caloolun baad ka qaadi moogee wax kale oo nafaqaa kama helaysid marka waxaan dhihi lahaa wixii hooye ah cabitaanka ha badsadaano nadiifka ah biyahan lagu darsanin hal koob aa ku filan laazim ma inaa garaafa gow ka siisid fahant marka wixii oo waxaan lehay hadde oo dardaaran waa intaas oo hooyo ah marka waxaan dhihi lahaa dee odayaashana kama marno dee haddii la siinayo ayagana qurux bay ka qaadayaan ma fahanteen asxaabteeda dawaa kaasaa waan wada jecelahay dhammaantiin meel kastoo joogtiin ilaahay ha idinku xifdiyo la-aantiina abaar waaye meel kastoo joogtiin allah idinku xifdiyo janalka wax badanaa loo soo wadaa inaad ka faa'iidaystaan aan rajaynayaa insha allahu tacaala hadda waxaa isku ognahay kheyr badan asxaabteyda bye bye